kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan waxa la soo gaaray aamintii aan idiin soo gudbin jirnay war wixii naga soo gaaray guud ahaan daafaha caalamka iyo dhulka ay Soomaalidu degto warka waxa idin la socodsiin doontaa anigoo ah Nasr Cumar balse haatan ku hormaro qodobada warka ugu doorka roon midowga Afrika ayaa wada qorshe muddo kordhin loogu sameynayo ciidamada AMISOM baaritaanka weeraradii argagixiso ee dhacay 11kii Sebtembar xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dhalinyaro afduub loogu geystay magaalada Beledweyne dagaalo culus ayaa ka socda dooxada Banjashir ee dalka Afghanistan daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada aad warka ku maqli doontaan imikii haatan u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa channelka Bisla TV oo kala socon doontaan warar sugan warbixino xasaasi iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaasi oo ay kamid yihiin barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada daawadayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteena ku xidhan channelka sidoo kale waxaan ka codsanaa asxaabtaan nagu xidhnaa inay channelka noo saaraan like-ta share-ta iyo subscribe-ta waxaad nagala socon kartaan bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook YouTube iyo Twitter balanteenu markasta waa channelka Bisla TV xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay afduub Beledweyne loogu geystay wiilal dhalinyaro ah oo loo afduubay inay isku qoys yihiin taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin xildhibaan Faarax Cabdiqaadir oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo isku qoys yihiin wiilasha lagu afduubay Beledweyne ayaa marka hore ka taxsiyadeeyay geerida Ikraan Tahliil isla markaana sheegay in dilkeeda aanu galin wax la isku turtuuro dilka Ikraan in la isku turtuuro ma mudna waxaan bogaadinayaa ugaaska beesha ay ka dhalatay Ikraan dhaqanka iyo maamulka Beledweyne ee maanta u gurmaday inay xaliyaan shaqaaqadii maanta ayuu yiri xildhibaan Faarax xildhibaan Aamina Maxamed oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda qoyska wax afduubta ayaa ka hadashay afduubka loo geystay wiilasha dhalinyarada ah ee shalay lagu afduubtay Beledweyne isla markaana sheegtay inay ka xun tahay in la dhibaateeyo dad aan waxba galabsan qof aan dhibaato noo geysan yaan loo dhibaataynin Ikraan darteed Ikraan dad baa lagu tuhumayaa una eedeysan ayay tiri xildhibaanad Aamina Maxamed hadalka xildhibaanadan ayaa imanaya xilli shalay xaafadda Halwadaag ee magaalada Beledweyne lagu afduubtay 3 wiil oo dhalinyaro ah oo isku qoys yihiin taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin waxaana afduubka dhalinyaradaasi ay la xiriirtay geerida Ikraan Tahliil oo ay shaacisay habeen hore hay'adda NISA inta badan dawladaha xubnaha ka midowga Afrika ayaa ku boorinaya qaramada midoobay inay gacan ka geysato xoojinta dadaalada nabad ilaalinta ee Soomaaliya iyadoo midowga Afrika uu ka tusaale qaadanayo qabsashadii Taliban ee Afghanistan sarkaal sare oo ka tirsan midowga Afrika ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay si weyn ugu tiirsan tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM waxaan ugu baaqaynaa qaramada midoobay dhammaan la howlgalayaasha inay sii wadaan taageerida Soomaaliya iyagoo si fiican u garanaya xaaladda Afghanistan ayuu yiri Bankol oo ah gudoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga ee midowga Afrika oo jimcihii la hadlayay wariyeyaasha midowga Afrika ayaa doonaya in howlgalka AMISOM la kordhiyo ilaa 2027 qaramada midoobayna ay bixiso taageero dheeri ah sida uu mar kale sheegay madaxa siyaasadda midowga Afrika Bankol wuxuu sheegay inuu rajaynayo dhamaadka Oktoobar inay dib ugu laabanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka dalbanayaan taageero dheeri ah maamulka Galmudug ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamo ka tirsan Puntland oo gaaray deegaanada koonfurta gobolka Mudug si ay uga qayb qaataan dagaalka Galmudug kula jirto Al-Shabaab labadii maalmood ee ugu dambeysay ayaa warbaahinta lagu arkayay ciidamadan oo watay qalabka dagaalka kuwaas oo isku diyaariyay inay Galmudug ka caawiyaan dagaalka Al-Shabaab wasiir ku-xigeenka amniga maamulka Galmudug Cabdullaahi Cabdisalaan ayaa wakaaladda wararka u sheegay inay
inay iyagu maamulka Puntland ka dalbeen inay ka caawiyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab maadaama Puntland ay khibrad u leedahay la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaan ka codsanay inay naga caawiyaan sidii aan Al-Shabaab uga saari lahayn dhulka ay naga haystaan, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka amniga Galmudug Cabdulaahi Cabdisalaan. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare ayaa maalmo ka hor sheegay inay Galmudug u direen ciidamo khibrad u leh la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaan u dirnay Galmudug ciidamo yaqaan sida loola dagaalamo Al-Shabaab waana isbahays lagu xidhib tirayo Al-Shabaab, ayuu yiri gudoomiye Sanyare oo ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidamada loo diray. Al-Shabaab ayaa dhawaan dib ula wareegtay magaalada Camaara oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taala wadada aadaysa magaalo xeebeedka Xarar Dheere oo ah goob Al-Shabaab aad ugu xoog badan tahay. Al-Shabaab waxay sidoo kale sheegeen inay ku sugan yihiin degmada Bacaadweyne iyo Shabeelow oo ah dhulkii hore looga saaray balse ay markii dambe ka baxeen. Mustaqbalka dooxada Panjshir ee wadanka Afghanistan oo ah meesha kaliya ee aan weli ku jirin gacanta Taliban ayaan weli kala cadayn xil uu soconayo dagaal culus. Ilo wareedyo ka agdhow Taliban ayaa u sheegay wakaalada wararka inay qabsadeen aagagaasi, hase yeeshee dagaalyahanada wax iska caabinta ayaa arrintaasi gaashaanka u duubtay. Mid ka mid ah xogaga iska caabinta Amrullah Saalax ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu cararay, hase yeeshee waxa uu sheegay in xaalku uu adag yahay. Dagaalka ka soconaya Panjshir ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 100 qof. Dooxada oo ku taala waqooyiga magaalada caasimadda ee Kabul ayaa ah mid ka mid ah gobolada ugu yar wadanka Afghanistan, waana goobta kaliya ee aan weli soo gelin gacanta Taliban. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay amar fulin ah oo uu ku amray hay'adda FBI-da inay kala shaandhayso dokumentariyada la xiriira weeraradii argagixiso ee dhacay 11 Sebtembar 2001. Amarkan oo soo baxay Jimcihii shalay ayaa taageero u ah qoysaska dhibanayaashii weerarkaas muddo dheer raadinayay diiwaanada dhacdadaas oo ay filayaan in laga heli doono ku lug yeelasho weerarkaas ee boqortooyada Sacuudiga. Baaritaano hore oo la sameeyay ayaa lagu qeexay inuu xiriirka ka dhaxeeyay muwaadiniinta Sacuudiga iyo qaar ka mid ah afduubayaashii diyaaradihii weerarka lagu fuliyay, inkasta oo aan la xaqiijin in dowladda Sacuudigu ay wax lug ah ku lahayd. Weerar loo adeegsaday bambo gamceed oo ay ku dhaawacmeen 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa xalay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Weerarka bambo gamceedka halka lagu tuuray xaafad si weyn ay u degan yihiin musharaxiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka oo aanay ka fogeyn hoteelada waaweyn ee magaalada. Xaaladda caafimaad ee xildhibaanada ayaa la sheegay inay soo hagaagayso. Waxaa la sheegay in dhaawacyadoodu ay fudud yihiin. Howlgallo dadka guryaha loogu galayo ayaa saakay oo Sabti ah ka socda xaafadda Hanti-Wadaag, gaar ahaan laanta koowaad ee magaalada Jowhar, halkaas oo xalay ka dhacay qarax bambo gamceed. Ciidamada ayaa la soo sheegayaa inay dhalinyaro badan guryaha kala baxeen. Waa tahay daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudanow, intaasi waxaynu ku soo gabagabeyneynaa war wixii aan idinka haynay guud ahaan daafaha caalamka iyo dhulka ay Soomaalidu degto. Inta aynu ku kulmi doono warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo. Kulan dambe xiiso leh.